boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood jirkooda uu ka muuqdo jirdil ayaa laga soo badbaadiyay dooni soo gaartay dalka Talyaaniga. Warbixin gaar ah oo ku saabsan xaaladda dhalinyaradaasi ay ku sugan yihiin waxa inoo diyaariyay wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo oo ku sugan magaalada Milano. Dhagaa ka milqi jiray magafa ayaan la kulmay. Magafana waan soo kala calaf qaadnay. dhalinyaradan ayaa shalay laga soo badbaadiyay doomo ay wateen oo soo gaaray biyaha dalka Talyaaniga waana dufcadii ugu dambeysay oo muhaajiriin Soomaaliyeed soo gaara iyagoo bad qaba dhulka Talyaaniga. doomaha nabi way soo badbaadeen nabad baan ku soo galay saacadaada markay gaadho ayuu qof walba dhintaa laakiin walaalada Allah naxariistaan leeyahay kuwii ugu horeeyay magaraysa doonta ku qaribay kuwa kale tala Allah ka badbaadiyaa leeyahay waxaan ku saarneena 101 qofood markabku markoona badbaadiyay kadib laba habeenaa badda ku soo jirnay alxamdulillah shalay ayaa imaanay markay aheeday 8 qofood aa naga dhimatay 3 meel lagu duugay 2 meel lagu duugay inta kale hal lagu duugay Liibiyaanka way ku dilayaan way ku xoogayaan ku farxumaynayaan wax naxariis ma laho rafaada ka muuqdo meesha dad jeclahay dad nacab iska dhafina saxara soo maraane wallahi ma jecli 3 bilyan ka badan ma aysan cunin cunto dheelitiran qaarkood saxaraha Liibiya iyo Suudaan waxa ay ugu dhinteen gaajo iyo haraad sida ay sheegeen oo duunta xataa marka la qofka sanadaan looma duug carada la dhiga carada la lagu baa qofka jirkiisa soo banaanka yaal maqaaxidan ama hoteelkan laga cunteeyo aan ku suganahay ayaa ah halka marka ugu horeysa Soomaalida badaha soo maray ee soo gaara magaalada Milan ay ka cunteeyaan والله waxaan macalna si fiican barkeed ayagoo lacag haysan meeshii yimaadaan ayagoo duruufaysan yimaadaan maxay si badan fiican u taakuleena oo saacidna cuntaan siina markay cunto cunaan oo telefoon cidooda kula hadlaan ka bacdi wax dalbadaan waxa intaas u dheer kufsi dumarka lagula kaco iyagoo muhaajiriin ah iyo waliba jirdil loo geysto dhalinyarada sida ka muuqata jirkooda qaarkood ay tusayaan dhaawacyada nigu yaala waxa weeyaan waa nabaro ay sababeen cidhiidhigii badnaa iyo kuleylkii badnaa iyo meelihiina lagu xareynayay kontiinaradiina lagu xareynayay iyo jirdilkii ama budh noqoto ama wax kale baa noqotay nala dhacayay inta aan ku sugnay Liibiya magafa dadku soo haystaan nin naxariis lama aha isagu wuxuu raadsadaa waa lacagta dadka lacagtiisa dadka adukaan waayo ugu dilaya Milano waxaa ka socda bandhiga carwada oo Soomaaliya sanadkan madaxda ugu sareysa ay ka qayb gashay inkastoo madaxweynaha ama mas'uuliyiintii la socday midkoodna dhalinyaradan ku dhibaataysan Talyaaniga aanan la kulmin ayaa gudoomiyaha dhalinyarada injineer Khaliif waxa uu iga waramay sababta madaxda ay ula kulmi waayeen dhalinyaradan waxaan noo diiday howlwadeenadii madaxweynaha gacanta ku hayay mas'uuliyiinta Expo aan ugu kalifay aan macnaha sababay inaan la kulmo weyna madaxweynaha waliba aan u sheegna baahida aan macnaha ka hadlayno iyo waxba aan ka hadlayno taasayna nooga cagijiday madaxweynaha eedada aan saarno gaar weyn ma jirto ani waxa ahay 15 jir waxa magacayga waxa waay Xanad Cabdullaahi Muuse oo waxaan 2 bilood iyo 15 bari ayaan jidka ku soo jiray 15 jir ka soo tagay hooyadiis ama aabiis wada uu sanaqooni soo maray ay halkan ku arkaysa dabcan waxa iga ooyay waxa kamid tahay sida ay u jeceliin waalidiintooda ay u salaamayaan oo ay u sheegayaan inay caafimaad qabaan boqolaal ayaga kamid ah ayaa badaha ku dhintay waxaan salaamayaa hooyaday Saare Axmed Caliya hooyaday way dhibatay laakiin aabahay iyo reerkanagi waxaan leeyahay ii soo daceeya ilaahayna nabad uu igu keenay waxaan salaamayaa hooyaday aabahay hooyaday mar cali aaba bilisuga halka waxaan ka salaama aabahay iyo qaraabadeeda aniga waa caafimaad qabaa Talyaaniga jooga hooyo aan ku salaamay aniga nabad qabo insha Allah waantay waan caafimaad qabaa qofka xigto dunida ugu qaalisan oo ruuxda aan noolaa aan ka jeclaa waa xaaskayga qaaliga hadaad ay aragto oo codkayga aad maqasho waa nabad qabaa abaay macaanto kulay codkayga aad maqasho waad ku farxi doontaa waan ku salaamay macaanto Ibraahim Cumar Baafe wararka Universal magaalada Milan dalka Talyaaniga